Assalaamu calaykum dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa. Insha Allah waxaynu halkan ka sii wadi doonaa casharaantii taxanaha ahaa ka socday channelkeena Hargeysa Trade House, sidoo kale u socday teamka Hargeysa Trade House ee qaybta WhatsApp-ka. Waxaan ugu talagalnay marka aan YouTube-ka usoo gelinay inay cid kastaaba oo barnaamijkan u baahan ay ka faa'iideysato, aanay cid gaar ah aanay ku koobnaanin. ciddii kasta oo nala soo xiriiri kartana insha Allah waanu ka caawinaynaa. Waxaan ku reebi doonaa marka halkan description-kan ku reebi doonaa contact-iskayga. Marka waanta waxaynu isticmaali doonaa oo aynu insha Allah falanqeyn doonaa application-kan loo yaqaano MT4 MetaTrader 4 oo ah marka kan kugu xiraya suuqa forex, oo kugu xiraya marka brokerska aad soo doorato ee aad soo register gareysato, ka kugu xiraya brokerskaas inay yihiin kuwii suuqa kugu xirayay ee suuqa ku gelinayay. Insha Allah marka waxaynu eegi doonaa sida ula soo degi lahayd adigoo marka insha Allah u isticmaalaya Play Store-ka ayaad insha Allah ku qori doontaa MT4 ama MetaTrader 4 waa ka ugu sareeya. Already anigu uu install gareysan yahay. Markuu sidan kugu soo baxo waad install gareysanaysaa. Then anigu uu install gareysan yahay waxaanu eegi doonaa sida aynu marka waa kan barnaamijku. Waxaynu marka eegi doonaa sida aynu u samaysan lahayn ugu horeyn demo account, sida aynu u samaysan lahayn aynu eegi doonaa. Ugu horeyn waxaad soo furaysaa bartaas, halkaas ayaa soo furaysaa. Then markaad soo furto manage baad ku dhufanaysaa, manage account baad ku dhufanaysaa. Halka ay plus ku qoran tahay, plus halkaas ay taalo ayaad click siinaysaa. Open demo account waxa weeyaan marka aad demada furanayso. Login to an existing account waa marka aad realiga broker marka aad soo diiwaan geliso ID iyo password uu ku soo siiyo ee uu ku soo aqbalo ayaad halkan iyadana click siinaysaa. Marka kan sare ee open demo account ayaan click siinayaa. Find broker buu ku yiri, find broker, raadi broker aad ku xidhato marka oo demo account-kii aad u isticmaasho. IC Market magacaad qoraysaa marka IC Market kaasoo kaliya taaban iminka qoranayaaba. IC Market kaasaan insha Allah ku dhufan doonaa. Halkan waxaad arkaysaa name inuu yahay, magacii baad gashanaysaa. Halkan phone-kii baad gashanaysaa. Halkan sidoo kale email-kii baad gashanaysaa. Halkan sidoo kale account type, account-ka nooca aad ka dhiganaysa marka aad click soo siiso ECN ICM waxa weeyaan brokerkan magaciisa ayaa loo soo gaabiyay. ECN brokerkana ah marka mid ECN ah. ECN kuna waxa weeyaan akoonada kuwa ugu fiican buu ka mid yahay. Marka waxaad ka dooranaysaa USD baad ka dooranaysaa marka adiga currency ku noqonaysa marka currency ay ku noqonaysa lacagta base-ka ku noqonaysa. Leverage-ka iyadana halkan ayaad ka dooranaysaa. Leverage-kuna waxa weeyaan awoodda aad suuqa ku yeelan lahayd weeyaan, maaha lacag lagu amaahinayo iyo maaha wax lagu sii deyminayo iyo maaha waxa weeyaan awood lagu yeelayo weeyaan. 500 ama 300 ama 400 inta midun ka dhigo. Deposit halkan deposit ay ku qoran tahayna waa lacagtii aad doonaysay inaad deemada ku gasho suuqa intee baad ka dhiganaysaa 5,000 bay dheh iyadana. Then waxa leedahay create account baad click siinaysaa marka taa dhamayso sidan ayuu kugu soo baxayaa. Lacagaha inta yar baa inoo soo baxday. Step-ka labaad ee qaadana waxa weeyaan inaynu insha Allah lacag ku soo darsano. Lacag inaynu ku soo darsano halkaas marka ay ku qoran tahay plus ay wad yar sugaysaa inta active ku noqonayso. Imika active maaha, laakiin kan qalinkan ku dhufanayaa waan ka soo noqonayaa. Already imika active weeyaan oo taas click baan siinayaa. Then lacagiiban marka folderskan lacagaha ka raadinaya sidaan ugu soo darsanayno weyn isleegaynaa hadda aynu wadaynaa iyadana. Folderskan ku dhufanaysaa gudahooda lacagahana deegaysaa marka miyaad u baahan tahay maya lacagahan ma isticmaalayo kuwan oo kala ha AUD card AUD CHF AUD GPY click ma siinaysaa wad la dhacaysaa mid kamid ah baad la dhacaysaa oo iyaga isku soo wada daraya automatic iyada ku soo wada daraya wad ka eegaysaa halkan kale wad ka baaranaysaa marka kuwan kalena ka baaranaysaa lacagaha waxaan wad iska dhaafaysaa intooda badan.
lacagtii aad weydana waad ka raadin doontaa oo waad dib baad meelahan oo kale uga soo raadinaysaa. Already sidaas ayaynu ugu soo wada darsanay lacagihii. Even aad weydo lacag kale haddii aad weydana waxaa laga yaabaa inaad dib uga baadh bartaas, ama yara refresh gare. Haddii aad hore uga weydana yara refresh gare, ciladaasoo kale way dhacdaa, yara refresh gare deemadaada. habkaas waxa weeyaan habkii aynu ugu soo darsanaynay lacagaha weeyaan. Marka insha Allah videogeena labaad ayaynu ku eegi doonaa waxyaalahan spreadka iyo sidan ay u kala sareeyaan lacaguhu, iyo sida loo trade-ka loo furanayo, iyo waxyaalahaas oo dhan videoga labaad baynu ku eegi doonaa.